haddaad tahay qof Soomaaliya dhaxalkaagu waa maxay? anigu Soomaali baan dhaxalkaygu waa diinta Islaamka. diinta Islaamka ee aan qaatay waa inay siday tahay aan u fuliyaa. waynaana been sheegin, waynaana ku khayaamayn, waynaana ku xasdin, waynaana ku dhicin iyo wixii la mid ah. waa dhaxalka anigu aan leeyahay iyo qofka Soomaaliyeed. maxaa kaloo dhaxal leedahay? waxaan kaloo dhaxal leeyahay bay'adayda, inaan garto bay'adda aan ku noolahay ee qofka Soomaaliyeed uu ku nool yahay. waa inuu kula noolaadaa qofka Soomaaliga ee kale ee ay deriska yihiin. maxaa kaloo dhaxalkaagu yahay? dhaqankaaga. dee waa inaan dhaqanka ilaaliyaa oo dhowraa. waa inaan gartaa horta dhaqankayga, dabadeedna waa inaan ilaashaayoo dhowraa. muxuu kaloo dhaxalkaagu yahay? xeer. war maxaa inoo xeera? dee wixii inoo xeera waa inaynu ixtiraamnaa. wixii inoo xeera waa inaynu ku kala baxnaa. wixii inoo xeera waa inuu ina kala hagaa. war maxaa kaloo dhaxala oo qofkii Soomaaliyeed leedahay? ammaano. dee waa inaan qof aamina ahaataa. waxa laguu dhiibay ee mas-uuliyadda ah, ama haddaadan mas-uuliyad hayn, de horta waa inaad noqotaa qof aamina. maxaad kaloo dhaxal leedahay? waxaan kaloo dhaxal leeyahay in aan dalkayga khiyaamayn. wadaniyad. waa inaan la imaadaa wadaniyad. waa inaanan ajnabi u shaqayn. waa inaan dalkayga u shaqeeyaa. waa inaan gartaa waxa dadkaygu u baahan yihiin, oo aan inta iyagu ay garanayaan aan ugu shaqeeya, dabadeedna soo gaadhsiiyaa, kobciyaa. mushkiladda ina haysataa waxay tahay wixii aynu dhaxal lahayn baynaan garanayn. PhD dhaxal maaha. masterate dhaxal maaha. bachelor dhaxal maaha. af carabigaa naqaanaa dhaxal maaha. waxaasoo dhammi dhaxal maaha. dhaxal waa afkaaga hooyo. qodobkaa intaas ayaan ku dhaafaya. alxaqiiqa, dowladdii militariga ahayd ee 20 sano jirtay waxay ka koobnayd ummaddan Soomaaliyeed.
wanaagna way lahayd xumaanna way lahayd مثلا ninka wax ka tirsanaya maxamed siyaad raxamallahu calayhi wuu iga hooseeyaaye dee farmaajo shaqo kuma leh loomana nisbayn karo loomana aanayn karo tusaalena dee looma soo qaadan karo ilaahay baa inaga hadal siinayo ina leh reeraha Soomaaliyeed reer aan dawladdii kacaanka ku jirin anigu garan maayo ita aadan markaa nidintay aadan eedayn horta waxaad eedaysaa kaagii ku jiray kaaga laftiisaa wuxuu lahaa ammaan kaaga laftiisaa wuxuu lahaa xumaan dadka maanta nool ee aniga da'dayda ah ama igaba weyn qof aan kacaankii la soo shaqayn ma leh hargeysa ha joogo garowe ha joogo xamar ha joogo uma nisbayn karo anoo la soo shaqeeyey kacaankii eedii dusha kama wada saari karo marxuumkii waa dhab weeyaan waynaan wax dhaba ku wada hadalnaa haddiiba ay wax dhaceen waa inaynu waxaas oo dhan ee rajiimka ka midka ahaa soo xaadirinaa hal qof waxba ma samayn karo madaxweyne waxba ma samayn karo laakiin waxaa wax samayn kara wax allaale iyo wixii rajiimkaa ku jiray mid madaxweynaha warbeena u geeya mid madaxweynaha marin habaabiya mid madaxweynaha wax kale ka saxeexa mid darajadu xaqa u lahaa ka reebo oo mid kale siiya ka dabeedna kaasina cadhoodo oo jabhad noqdo wuxuun baan uga jeedaa wax kasti way dhaceen maantay ka xun tahay maanta ayaydnaan aakhirana jirin ifkana jirin maanta ayaydnaan shalayto wixii dhacay waxba ku qaadan waxaasoo dhan marka la soo ururiyo waxay isugu tegayaan qofku dhaxalkiisaba ma yaqaan dhaxalka waxaa soo gelaya histariga taariikhdaa soo gelaysa sooyaalkaa soo gelaya war maxaa dhaxalkeennu yahay الحقيقة maanta oo 2020 aynu ku jirro waa inaynu garanaa fahamnaa waxa dhaxalkeennu yahay haddii kale sida aynu nuhun baynu ahaanaynaayo kuwa kalena saasaynu uga tegaynaayo da kuwa ka sheekayna saasay kasii dhaxlayaano maba garanaya
sideedaba aniga agtayda nin California ka soo baxay iyo nin ka soo baxay jaamacadda u sareysa war anigu ma aqaan anigu waxayga yar baan aqaanaa bay'adayda dhaqankayga xeerkayga Soomaalinimadayda wadaniyadayda intaa yar baan garanayaa anigu intaa wax igu maamulaan sabaa waxaan khiyaamayn baan sabaa wax aan u shaqayn ajnabi baan rabaa hadduuba isoo maro waa inuu qofku khaldaadkii uu galay qirtaa ninka shalay khalad iga galay oo madaxweyne ahaa maantana madaxweyne matalan u ordaya masalan ee aanan afkiisa ka maqleen waxaasi waa iga khaldameen waa mid subxaan allah soomaaliyey waxaan idinkula talinayaa inaad garataan dhaxalkiina hadda dhaxalka yaan si kale loo qaadan aabbe dhintay oo xoogaa lacaga ka dhintay oo carruurtu ka maya anigu waxaa ka hadli maayo waxaan ka hadlayaa dalkan Soomaaliya iyo dadkan Soomaaliya muxuu yahay dhaxalkoodu wax alla waxa qurbaha inaga yimi bal idinku eega markay khudbaynayaan waa kelmad Soomaaliya iyo kelmad Ingiriisiya taa uu ka soo qaatay PhD-da xataa si fiican uma xafidsana dabadeedna waa ka inagula soo noqday afqalaad aqoontu miyaa warninku muxuu leeyahay tallaabadiisiina wuu ka tegey tallaabo kalena waa gaadhi waayey horta halkaa weeye halka khaladka Soomaaliya uu ku jiro waayo waxaanay garanayn waxa ay leedahay oo ilaahay dhaxalka u siiyey الحقيقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.